kulanti wacan Ramadaan Kariim daawadayaal waxaad mar kale ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad barnaamijka Kafu ama adiga ayaa u qalmay oo geesiyaasha ama dadka waxtarka u leh dalkaasi Bahrain oo ay bulshada wax u tiray ay ku abaalmariso soo dhawaada mar kale tiimkii way ziyaariyeen maanta yaa marti ah aan eegno دعينا ضيف اليوم لتجربة قيادة سيارة وما كان على علم باللي ينتظره maanta martideena waa ninkan gaariga wata sida aad u jeedaan magaciisana hadhow ayaad ogaan doontaan gawaarida kala soo agdhiga ayaa la yiri kaligiisa ayaa markii hore socday wadada dheer ku socday hadda waa uu yaaban yahay ishaaradii ama ba astaantii muujinaysay qofkan in uu mudan yahay ama gees uu yahay hortiisa la soo dhigay ayaa la yiri waa uu yaaban yahay in ay wax ay jiraan waa uu dareemayaa shaashad weyn oo uu ku qoran magaciisa Maxamed Saalim Geesi tani waa lama filaan ayuu yiri mufaaja'a baawarkii weynaha la soo kaxeeyo shaashad weyn ayaa ku xiran Geesi Maxamed Saalim ayaa ku qoran boorkii weynaha magaciisa iyo sidoo kale sawirkiisa ayaa la soo dhajiyay oo ku qoran yahay anta kaf wadu qalmata muraayadaha kor u qaada ayaa la yiri khayr ayaa idin rajaynayo yiri dhinaca kale haddana waa laga dhigay oo gaariga yaala iyo muraayadii kor loo qaado sawiradiisa ayaa lagu soo saaray بانر كصوب بندقة لجري سيدين دي سكم وقت فرحت الماء يسوع استاجي إلهي أيو أم هضنقة يا الحمد لله يوري بعد ما سنتين يوري هذه على دار لجري نرحب فيكم مستمعينا بطل جديد نعرفكم عليه waxaan idinku soo dhaweynahay hayaa la yiri daawadayaasheena geesigeeni Maxamed Saalim ee wadadana taagan diyaar al-Maqar Maxamed Saalim oo isagu qaatay mowqif aad u adag nafsadiisana ka fikiri waayay kadib markii qoys uu dab gurigeedu ka kacay uu ka badbaadiyay sababna uu noqday in qoyskaasi maanta ay noolaadaan marka alla laga soo tago waa maxamed hooyadiis waxay leedahay waa qof aad u degan qof bulshaabu ma ahan laakiin qof waa iska aad u degan maamadan waa dariskiisa waxay leedahay waa markii ugu horeysay aan arko waa dariskeeni muddo sanado ah weligeena ma arkin ninkan dab ayuu ka badbaaday maalin khamiis ayay ahayd gabadhana waxay ka mid tahay dadkii ka badbaaday dab ayaa ka kacay dhinaca jikada qof jaarka ka mid ah albaabka soo gargaraacay oo noo sheegaya maxamed uu yeerayaa dhahaya dab ayaa kacaya dab ayaa kacaya gurigeena ayay u malaysay laakiin ma ahaynba والوالدة كانت فيها الدب وفي طلعاتنا بطلت الباب وشوفت الدخان وطبعا ما يبين ولا شيء في البيت ما نقدر نبطل الباب ولا نقدر نطلع من ما في حجرة خوف على waxaan ahayn kuwa aad u baqaya kuwa aad uga baqaya dabkaas qiic iyo waxyaabo ka baxaya gabadhood aad ayay u oonaysay cabsi ayaa ka muuqatay waxa ay dalbanaysay in la caawiyo محمد waxa isku dayay inuu albaabka uu jabiyo laakiin waa uu suurtagali weysay محمد waxaan ku dhahay war waxaan wax kama qaban kartid waxaan ma awoodid ee iska daa محمد ayaa noo yimid oo isagu dhowr guri ka soo booday ilaa 3 guri
sidaas ayuu nagu soo gaaray qaybta kor ayuu soo maray وشايل معاه الدري والدري ما شاء الله كان عود يعني فشلون بيحاول ينظم والبيت رفيع اللي يمنه وعلى ما شقح وقطر guriba guriga ka dheeriya siduu u soo marayay ayaa markii dambe u soo inuu noo yimaado اقول لهم وين ولدي؟ اللي يقولون ولدي وسط الحريجه. قلت ما صدق يعني انا صدق انا يعني ابي انقذهم بس عارفين ضنايم. aad ayaan uga naxayay tiri markii aan arkay maxamed oo isku daygaas sameynayay balse nafteedu waxaan u sheegay in ilaahay aan tawakulo oo nafteeda aan dejiyo لكن يعني ما علي اذا الله يحفظه بحافظه علشان على ودي عشان ilaah hadduu xifdinayana inaan ku qanco haddii wax soo gaaraanna يا ناس aan ku qanco يبي بطل qadiyadaasi amaba يعني طلع qadarta eeba قدر سفتي على الشباك wuxuu isku dayay in uu daaqada uu ka soo galo uu naga badbaadiyo laakiin aad ayay taasi ay u adkeyd بعدين يقول لي ما شفتهم يعني شفت markii dambe waxa igu yidhi hooyo ma u jeedid miya gabadhaasi iyo sidoo kale hooyadeeda dhammaantooda daaqada ka qaylinaya رد مرة oo iyagu dalabna weydiisanaya ama inaan badbaadino بيت اليمن يعني رفيع derbigii kore ayuu ka soo booday kadib sidaas ayuu nooga soo gaaray روح يجيب اشياء يعني يبي بطل شو اسمه السفتي هذا من عنده من الحديده من عند ابوه ورجع لهم مره ثانيه إنه عشان يكسر الحديد. انا تفاجئ هو بالسيفتي انه ما يتبطل. يحاول يبطل السفتي بالحديد وكنت انا بعد اساعده من صوب واحد هو في تكسيرة السيفتي هو علي يبي يحط لهم الدري انه ينزلون على الساعه طاح الدري عليه. طاح على خشمه وتعور وقت waxa uu ahaa qof dhaawac uu soo gaaray balse mar walba waxa isku dayay sidii annaga uu noo badbaadin lahaa ilaaha mahad leh وقعدهم فوق السطح. dhammaantood waa meesha waa uu ka soo saaray يعني ما ادري شو waxa uu ahaa qof dhibaato aad u maray dabkaasi in uu jiro uu maro ما صدقت اني شفته. يعني ما يبين من الدخان ما يبين من الدخان هو. تلاقي ما انت صاحي ما فيك شيء يقول ما تخافين علي ما فيني شيء يعني waxa uu ku celcelinaya ha ka baqin hooyo ha ka baqin isaga oo sankiisa dhiig uu ka daayo waxa uu sheegay in dadkaasi ay mudan yihiin in la soo badbaadiyo عناية رب العالمين عشان احنا ما isaga hadduusan ahaan lahayn alla ka sokooba waxay ahayd xaaladeenay ma sheegi karo يصرخون ينادوني waxa uu yidhi 4 ilaa 5 qof aa qaylinaysa oo dalabna weydiisanaysa inaan badbaadiyo ani keligay hal qof ayaan ahay ayuu yidhi اللي سواه شو اقدر اقول يعني ma aqaan wax aan توج على راسي من فوق ku tacbiiriyay arrintaasi balse aad u mahadsan yahay هو وفي حق على اللي سواه يعني ما قصر مع الوالدة waxa uu soo badbaadiyay hooyada iyo walaasha ayuu yidhi wiilkaas dadka dhan aad ayay ula yaabeen shaqadaas geesinimada maxamed uu qabtay la yaab ayay noqotay familka dhan mid laga sheekaysto ayay noqotay waayo maxamed qof firfircoon looguma aqoon نطلب ليل ونهار waxaan noqotay qof annaga naga mid ah mar walba habeen iyo maalinba waan kuu duceynaynaa ilaahay ha kuu badbaadiyo يفرحون فيك ويشوفون عيالك qoyskaadii carruurtaada allah kaaga dhigo kuway ku farxaan وياكم اهل واخوان لو كان شخص ثاني في مكانك يمكن ما يقدر انه هو يكمل المهمة. waxaan aaminsanahay qof kale hadduu jiri lahaa inuusan awoodi lahayn waxa maanta aad samaysay في حريق مثل هذا arrinta la xiriirta weliba dabkaas weyn ee guriga ka kacay oo hooyaday iyo walaashay aad ku soo badbaadisay aad u mahadsan tahay لك رفعت راسنا رفع راس ابوك راس خواتك يعني فرحانين الكل يقول لهم walaashaada aabbahaad kulliga kugu faraxsan yihiin aaday kugu weyneynayaan arrintaasaa qabatay maxamed waad mahadsan tahay naftaada ayaad dhibaato soo gelisay si aad teena u badbaadiso ayay leedahay gabadhan oo ka mid ah dadkii dabkaasi ka badbaaday alxamdulilah ilaah mahadlayo leeyahay الله يوافقك ان شاء الله ويسر امورك ويسخر ilaahay amraada allah kuu fududeeyo واتمنى له الخير والصلاح والفلاح يا رب في كل وقت في كل صلاه اصلي ويجلس ويانا ويودع وينسى. واطلب له ان شاء الله يا رب يبلغنا فيه يبلغني في عياله ان شاء الله. waa maxamed saalim oo isagu maanta ah qofka xalqadan lagu abaalmarinayo daawadeenala wadaag aragtidaada muuqaalkan ku saabsan
haddii aad nala socotay waxaa la siiyey biladii uu mudnaa waxaana guddoonsiisay hooyadiisii. والله صدمت يعني كنت ماشي حالي waddada markaan soo istaagay xaaladeeda iska caadi ayay ahayd, ويلا تشوف عمال wax dareena ma lahayn. السيد اللي يعمل صورتي في السيارة laakiin markii sawiradeeda iyo baanerka iyo sidoo kale waxyaabaha la yaabka la soo bandhigay markaas ayuu dareen u galay. مو عارف شاطر ma cabiri kara dareenkiisa sida uu yahay. إذا تقولون أنا كفو فهذه واجب علي tan hadday tahay mid aan u qalmay laakiin waajib igu ah. maxamed waad u qalantay, waad u qalamtaa, انت كفو فوق الكفو. ka badan ayaadna u qalantaa ayay tiri. سالم أرسل رب العالمين ليكون سبب في إنقاذ عائلة أكرم. ilaahay wuxuu u soo diray maxamed saalim sidii uu qoyskaas uga badbaadin lahaa dhibaatada dhimasho dhaawac ka dhalan lahayd dabka gurigooda ka kacay, بحرين وشجاعته taas oo dhammaan baxarayn dowladdeedaba tusay geesinimada wiilkan. كفو. maxamed waad u qalantay.